box sizing waxa laga wado box sizing ayaa isla arkaynaa. So tusaale ayaan qaadanaynaa si aan u aragno box sizing waxa laga wado. Box 1 boxkooda ayaan qaadanaynaa, kadibna waxaa leenahay leh box sizing. Okay, kan ayaa koobiyinaya, shaashada ayaa wax yar noo weyneynaya. Okay, kan ayaa koobiyinaya, kadib 3 mar ayaan ka dhigaya. Kan waan ka dhigayaa box 2, kan waxaan ka dhigayaa box 3, kadibna waxaa leeyahay caadi kan dhahda waan ka dhigayaa caadi midka macnaa wax box sizing ma leh. Box sizing kadibna waxaa leeyahay refresh. sidaa ujeedaan hadda waxaa haysanaa leh box sizing caadi iyo waxaan kaloo haysanaa aan lahayn box sizing. So inta ayaa imaanaya kadib waxaa leeyahay waxaan dooranayaa kan box 1 classkaas ayaan dooranayaa. box 1 ayaan dooranayaa kadib waxaa leeyahay widthka ayaa rabaa oo balaa waxaa leeyahay 200 pixel inaad ka dhigtaa rabaa. height-kan waxaa leeyahay dhererka waxaa rabaa inaad ka dhigta asigana sidoo kale 200 pixel. Okay, hadda refresh ayaa soo jeediyay kan hadda widthkiisana waa batay, balaciisa dhererkiisana waa batay. hadda way kala sigtaa kutigood waxaa rabaa inay widthkan yeeshtaan, height-kana ay yeeshtaan. So waa dhihi karaa marka inaan dhaho qaabkan koobiyey, aan dhaho box 2 kadib kan oo kale aan imaado aan dhaho box 3. soo jeedin koodkayga hadda oo soo noqda. So waxaan sameyn karaa qaab fudud kaasoo ay grouping. Okay, waxaan ku sameynayaa grouping kad ayaa leeyahay. qaabkaas macnaha waa la sameyn karaa laakiin professional maaha. waxaa leedahay box doodo inaad ka hormarisaa too kale kama dot box 3 kadibna refresh. intooda hadda waxay wada qaadanayaan waxaa waaye box 1 dooro, kadib waxaad doorataa box 2, waxaad doorataa kadib box 3. dhammaantoodna waxaa siisaa widthkan waa 200 iyo height-kan waa 200. Okay, sidoo kale farta waxaa rabaa inaan dhammaantood aan ka dhigo cadaan. So color hashtag ff kaasoo ay cadaan. hadda farta cadaan ayay noqonayaan. backgroundkan iyo waxaad yeeshta farta cadaan soo isku dhex dhamaan maxaa yeele waa wada cadaan ma la kala arkayo. So marka waxaan dooranayaa box 1 kadib waxaa leeyahay background wed gaduud ayaan ka dhigayaa. soo jeedin waa kana koobiyeysanaya copy kadib midkan kale asigana basta kusoo leeyahay. inta waxaan ka dhigayaa 2, inta waxaa ka dhigayaa 3 kadibna la refresh. kutigooda gaduud ay wada noqdaan. so background ka duwan ayaan siinayaa gaduudka. noocaasa siiye kana noocana siiye blue ama kadibna waxaa la refresh. haddaba sida ujeedin waxaa haysanaa 3 boxkan oo leh box sizing, kan oo iska caadi iyo waxaa haysanaa kan oo aan lahayn box sizing. so hadda ayaan arkaynaa box sizing waxa uu leeyahay. waxaa rabaa inaan padding aan ku daro midkan box 1 midkan aan ku daro padding sida ogtiin waxaa waaye oo darbiyada kasoo sakanaya wax dhacda ku jira contentiga. so waxaa leeyahay padding waxaa leeyahay 10 pixel kasoo saki. 10 pixel hadda 4 dhinac waaye, kor iyo hoos 10 pixel kasoo dhis soo saki, bidix iyo midig 10 pixel kasoo saki. maxaa ku dhacay anaga waa aragna keliya in laga soo sakiyo dhinacyada, laakiin maxaa ku dhacay boxkan is 200 oo ahay hadda wuu weynaada. sababtoo 10 pixel widthkii waxaa lagu daray 10 pixel oo kore iyo waxaa kaloo lagu daray 10 pixel oo kore. meeshaas meeqa ku haystaa 20 oo 220.
haydka andheeyahay qaybtan haydka balacana asigana sidoo kale balac asigana waa baday wuxuu noqday 220 wuu badinaya had sidaa ujeedin waxaa badinaya wifka tusaale haddii aan si fiican idin tusiyo waxaan tegaynaa devtoolka aan tegaynaa Google devtoolka okay markii aad tago elementigan hover gareeyo inta ku dhufanaysaa kaas select meeshaas ayaa dooranaysaa maxaa ku qoran meeshaan select an element waa element dooro soo meeshaas ayaa ku dhufanaysaa kadib dhac markaasi kan ayaa horgareynaya elementigan ku dhawto markii aan tago wifkiisu meeqoo noqonaa ujeedaa wifka waa noqday 220 waa maxay sababta 10 ayaa inta looga daray 210 10 kalena inta looga daray 220 haadka asigana meeqoo ahay 200 ah 10 kor looga daray 10 hoos waa kana bogistu haddii aan horgariyaa meeqoo ah 200 inta ka fiiri calaamadaas soo baxayso 200 calaamadaas ka fiiri calaamada meeshaan ka soo baxayso ka fiiri 200 kan asigana 210 harjeynaya inay arkaysi soo marka box sizing asiga wuxuu sameynayaa box sizing wuxuuna sameynayaa asiga waxaa leeyahay kan waxaa ku dartaa box sizing border box ayaa leedahay kan wuxuuna sameynayaa in macnaha uunan weynaanin elementiga aan haysanay in uusan weynaan sida ujeeda hadda badinna waa noogu jiraa darbiyada waa laga soo sigay laakiin ma weynaan laakiin gadaala waxaa ka dhacaya asigana masqadka maxaa contactigana ayaa la yareynaya balaas la aragno selecta leeyahay kan iyo door waa kana box one leh box sizing okay hadda meeqoonooda 200 laakiin haddii aan qaybtan aan tago kadibna aan geeyo meesha u dambeyso wuxuu noqday 180 oo wifka iyo 180 oo haydka maxaa yeelay waxaa laga jarayaa 10 laga jaray waa 190 10 kale laga jaray waa 100 waa kana 10 geeskan ayaa laga jaray wifka 10 geeskan waa laga jaray waa 180 ayuu noqday 190 180 kana sidoo kale asigana saas waaye kadib badin lagu buuxiyey soo ahay hore 200 ayuu noqonayaa boskiis ma dhaafayo 200 ayuu noqonayaa maxaa kuwanu la mid yahay laakiin wifka waa la soo yareeyay inta kale badin ayaa lagu buuxiyey 20 pixel badin lagu buuxiyey wifka la soo yareeyay halii oo weynaan lahay 200 waxaa lagu gaarsiiyey badinka okay harjeynaa inaad fahanteen soo hadda hore waxaa laga yaabaa inaad u aragtay kan oo kale waxaa leedahay oo kale waa xidig waxaa waaye global selector waa dooro dhammaan wax allaale iyo wixiiba inta soo gala waaye dooro soo horeyna u aragtaa laga yaabaa mar baa arki doonto margin macnaha waa wax kasta sidoo browserka ugu talagala maane si kale ka dhig aniga rabo badinka 0 waxaa leedahay asigana box sizing border box okay kan xataa ma baanin maxaa yeelay si global ayaa u doortaa sidan badanaa sidan ayaa loo isticmaalaa kadibna aad sida ujeed darbiyada xoogaa way ka sigsan yihiin kadibna refresh alaa darbiga si toos ayaa u qabtay margin waa ka baxshay box sizing waa ii wadayaa soo badanaa qaabkan ayaa loo isticmaalaa intaan waxaa waaye reset waaye wixii oo browserka oo ku siiyey waxaa ku sameynaysaa reset mara waa leedahay intaan ii sameey wax margin oo dhan oo element imaan doona ka saar badinkana ka saar haddii badin aan ku darana iyo san weynaanin soo video inta sugiya muuqaalka like saar subscribe saar mahadsanid